السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Daalacan Media. Daawadayaal meel kastoo joogtiin waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. odayaal kusoo dhawaada Daalacan Media oo aan idinkugu soo bandhigi doono warar, warbixino, dhacdooyin, sheekooyin iyo wacdaraha kale ee la yaabka caalamka. Fadlan daawade saar, subscribe, share iyo like kamid noqo macaamiisha Daalacan Media. mahadsanidin. daawadayaal mar kale kulan wanaagsan. xubintan ugu horeysa waxaynu ka soo qaadanaynaa shirkadda Albarkaad Group of Companies oo xayiraadii Mareykanka ay ka qaadeen bishii November ee sanadkii 2001 ayay Mareykanku waxay xayiraad ku soo rogeen shirkadda xawaaladaha Barakaad ee Barakaad Group of Companies iyadoo hadal ka soo baxay waaxda maaliyadda ee dalka Mareykanka lagu sheegay inay soo gabagabeeyeen codkii eedeymaha ay haysteen kooxda shirkadaha Soomaaliyeed ee Barakaad Group of Companies oo ay shaqadooda ahayd shirkad ka shaqeyn jirtay xawaaladaha kooxda baariyaasha Mareykanka ee weeraradii daaraha mataanaha September 11 ee sanadkii 2001 waxay sheegeen inaysan haynin cadeymo toos ah oo muujinaya inuu xiriir ka dhaxaynin Albarkaad in nooc kasta oo kooxaha loogu yeero argixisada. dowladda Mareykanka waxay aasaasay shirkadda Albarkaad Axmed Nuur Cali Jimcaale iyo kooxda shirkadaha Albarkaad ee Barakaad Group of Companies liiska xayiraadda ka saaray sanadkii 2016 halka ay qaramada midoobay liiska cunaqabateynta ka saartay Axmed Nuur Jimcaale iyo kooxda shirkadaasi sanadkii 2012 shirkadda Albarkaad waxay xarumaha maaliyad ku leeyihiin dalka Imaaraadka waxayna lahaayeen in ka badan 180 xafiis oo u qaabilsan xawaaladaha lacagaha oo ku kala yaalay 40 wadan oo caalamka tirsan. talaabada ay xayiraadda Mareykanka kaga qaadeen shirkadda Albarkaad ayaa waxaa aad iyo aad u soo dhaweeyay dadweynaha Soomaaliyeed iyo ganacsatada oo sheegay in marka horeba lagu qaldamay in xayiraad lagu soo rogo shirkadaasi oo kaalin weyn kaga jirtay inay dadka Soomaalida ee qurbaha jooga ay u fududeyso inay lacag u soo diraan dadka walaalahooda ama ehelkooda ee ku nool gudaha Soomaaliya. odayaal xubinta kale ku soo qaadanayna waxay ku saabsan tahay su'aal laga keenay awoodaha ay Afrika iyo ciidanka dowladdu u leeyihiin inay u awood sheegtaan al-shabaab. warbixin cusub oo ka soo baxday waaxda difaaca Mareykanka Pentagon ayaa lagu sheegay inaysan ciidanka daacadda dowladda federaalka aysan weli diyaar u ahayn inay iskooda u istaagaan la dagaalanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan koonfurta Soomaaliya. warbixin ka soo baxday kormeeraha guud ee xafiiska Pentagon ayaa lagu sheegay inuu warbixintaas u gudbiyay xildhibaanada aqal Koongareeska dalka Mareykanka maalintii Talaadada ee la soo dhaafay. qoraalka waxaa kaloo lagu xusay in ciidanka qaranka ee Soomaaliya SNA oo kaashanaya kuwa AMISOM ay horumar kooban bilil soo dhaafay ka gaareen howlgalka loogu magac daray badbaado. dhinaca kale warbixinta cusub ee ka soo baxday xafiiska Pentagonka ee loo gudbiyay Koongareeska dalka Mareykanka waxaa su'aal laga keenay awoodda ciidanka Afrika u leeyihiin hadafkooda ku aadan inay ka guuleysan karaan dagaalamayaasha al-shabaab marka la gaaro sanadka soo socda 2021. warbixinta waxaa kaloo lagu xusay awoodda ay Africom u yeelan karaan inay u taageertaan al-shabaab xitaa iyadoo Africom laga taageeriyo duqeymaha droniska iyo howlgallada ay fuliyaan ciidanka qaaska Mareykanka ee ku sugan dhulka Soomaaliyeed. si kastaba haatee warbixinta cusub ee soo baxday ayaa waxay ku soo beegantay iyadoo ay dowladda Mareykanka dib u bilowday taageeradii maaliyadeed ee sida tooska ay sii jireen ciidanka dowladda federaalka ee howlgalka ka wada gobolka Shabeellaha Hoose. daawadayaal xubnaheeda ku talagal waa laga taa waxaad kala socoteen Daalacan Media.